14 bishii Sebtembar Baranay Baramuula waxaa lagu hordilay xaaskiisa. Gabadha uu qabana waxaa lagu eedeeyay inay ceeb u soo jiiday qoyskooda. Kadib markii uu dilka dhacay waxaa xabsiga loo taxaabay gabadha aabaheeda oo lagu eedeeyay inuu dilka ka dambeeyay. Amrutha iyo Baranay waxa uu jaceylkooda ka soo bilaabday dugsi sare oo ku yaala Miralayaguda, magaalo yar oo ku taala koonfurta gobolka Telangana ee dalka Hindiya. Markasta waan iska heli jirnay telefoonka ayaan aad uga hadli jirnay, kadibna waan isjeclaanay, sidaas ayay tiri iyadoo dhoola cadeynaysa ilmana ay ku soo istaagtay. Amrutha oo 21 jir ayaa ka dhalatay qoys maalqabeen ah, halka Baranay oo 24 jir ahaa uu ka dhashay qoys danyar ah. Amrutha ayaa wiilkan guursatay iyadoo ay ka soo horjeedaan waalidkeed. Uur ayaan leeyahay, noloshaana in aan ku noolaan doono uma aanan haysan. Aabahay ayaa dilay ninkeyga waayo kama uusan dhalanin qoys lacag leh sidayda oo kale, ayay tiri Amrutha. Ma jirto xog rasmi ah oo arrimahani looga hadlay, balse hal warbixin oo laga qoray ayaa sheegaysa in boqolaal qof lagu dilo dalka Hindiya sanad kasta, iyadoo loo aaneynayo inay ka dhaga adeegeen waalidkood oo ka soo horjeestay qofka ay nolosha la wadaagayaan. Qoysas badan oo dalka Hindiya ku nool waxay doorbidaan in ilmahooda ay guursadaan qof ay isku dabaqad iyo isku diin yihiin. Booliska ayaa xabsiga u taxaabay Amrutha aabaheed Maruti Rao, adeerkeed iyo 3 kale oo lagu eedeeyay in lacag gaaraysa $104,000 ku qaateen dilka Baranay. Waxay sidoo kale sheegeen in weerarkani uu ahaa kii afraad ee lagu damacsanaa in lagu dilo Baranay, balse kani uu noloshiisa ku waayay. Madaxa booliska ee gobolkaasi ayaa sheegay in Mr. Rao uu qirtay in dilka uu ka dambeeyay, sababta uu wiilkana u dilana ay ahayd inuusan ka dhalanin qoys maalqabeen ah. Amrutha waxay sheegtay in qorsheynayeen inay u wareegaan dalka Canada, balse ay iska baaqdeen markii ay ogaadeen in ay uur leedahay. Gabadhan ayaa sheegtay inay waalidkeed ogeysiisay inay uur leedahay iyadoo doonaysay inay u beernuglaadaan ninkeeda, balse waxay ka codsadeen inay canuga iska soo tuurto. Sidaas ayay ku weysay ninkeeda iyo qofkii nolosha la qaybsan lahaa.